geesta kalena gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera iyo saraakiisha ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland ayaa maanta furay goob loogu talagalay in lagala socdo dhaqdhaqaaqa badda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu soo kordhiyay xarunta ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland. badan ayaa in badan laga waday tababar baa socday waqti dheer ayay qaadatay waxaan nala yaraahid malaha waxaan waa iska riyay wax socon doono oo malaha ma aha waxani waxay soo socotaba waxaan ku guuleysanay oo dhamaystirmay qolkii operation roomkii loogu talagalay in badda dhaqdhaqaaqeeda dhan laga socdo wuu dhamaaday tababarkina wuu dhamaaday inamadii tababarka way joogaan tababarkii si fiican bay u dhameysteen wixii hadda ka dambeeyay waxa la sugayaa inay fuliyaan waajibaadkii loo xil saaray loo tababaray ciise dheere waxaana uu sheegay in uu qalabkan ahmiyad weyn u leeyahay xerada ciidankuna ay si weyn ugu baahnaayeen isla markaana lagala socon doono dhaqdhaqaaq kasta oo soo gala soonaha biyaha Soomaaliland. gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indabala ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay qalabkaasi iyo miisaanka hawshan soo kordhinayso operation roomkani uu soo kordhinayo in dhammaan dhaqdhaqaaqa badeena oo dhan isagoo halkan fadhiya uu ka arki karo waxaan karaa waa guulaha istaba joog ee Soomaaliland Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu talagalay inay ku hana qaato waayo xiriirkeeni maraakiibtii naga inoo soo socotay iyo maraakiibtii naga sii socotay iyo kuwii kale ee maganta u ahaa dalkeena badeena isticmaalayaba waxaanu kala soconaynaa dhaqdhaqaaqoodii naga caawinaysa waxyaalo fara badan facility fara badan hore aanu haysan ayaanu ka helaynaa dardaaranka kalena wuxuu ku aadan yahay coast guard-ka qiimaha la geliyo operation-kani waxa weeyaan wuxuu naga caawinayaa waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin haddii noqon lahayd xaggii nabadgelyada security oo aynu wada ognahay mandaqadeena de ma garanaysaa de waxyaalaha ka dhacaya waxay nagu soo kordhaa inuu kala soconayna xaaladeeda waxay kaloo naga caawinaysaa inaanu la soconno dhaqdhaqaaqa maraakiibtii ma garanaysaa dhinacyada mad inaga mari jirtay oran jirtay situation ahaan iyo xaaladahan waxaan ku sukanahay maadaama aanan ka warhaynin ma soo mari karna halkaa qaar ka mid ah hay'adaha la shaqeeya ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhankooda ballan qaaday inay sii xoojin doonaan xiriirka ay leeyihiin ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland sidoo kalena ay ka taageeri doonaan dhinaca qalabka dhismayaasha iyo tababarada ciidamada. I'd like to thank you all for coming here today to celebrate the opening of this operations room for the Somaliland Coast Guard here at the base here in Berbera. halkan waa Berbera dekada Berbera waxa taagan 18 weel baa taagan weel badeed oo isugu jira tankers iyo cargo 18 kaasi waxa isugu jiraan tankaro cargo ships iyo dooyayr waaweyn marka waxa lagu ogaanayaa programka Sea Vision qalabkan casriga ah ee ay maanta fureen mas'uuliyiintaasi ayaa ahaa mid ay si weyn ugu bahnaayeen ciidamada badda iyo ilaalada xeebaha ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasna ay kala soconayaan dhaqdhaqaaqa badda dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, xarunta ciidamada badda Berbera.